halkan waa inta u dhaxaysa taalada daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho iyo X xaruntii hore ee baarlamaanka oo ku taala meel aan ka fogeyn wasaaradda batroolka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo godka Jilacow oo xarun u ah ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya. halkan sidaad u jeedaan waa bar control oo lagu hubiyo gaadiidka u soo gudbaya dhanka wadada Xaawataako iyo tiyaatarka qaranka hormartana madaxtooyada Villa Soomaaliya. ciidamada nabad sugidda ayaa halkaasi gaadiidka ku hubiya. gawaaridan aad u jeedaan ee halkan ku gubtay kuna basbeelay waxa ay saf ugu jireen hubinta say u soo gudbaan. waxa marqura gaari noociisa lagu sheegay inuu yahay saaruf lagu dhuftay gaari cabdibila ah oo ay saarneed taliye ciidamada xooga ka tirsan oo magaceeda la yiraahdo Faadumo Cali. waxa sida la sheegay iyada iyo dhowr askari oo gaariga saarnaaba ay ku dhinteen. sidoo kale saygeeda ayaa kamid ahaa dadka ku dhintay qaraxa. sidoo kale cabdibila kale oo goobta maray ayaa sidoo kale goobta ku basbeelay. gaadiid kale oo la sheegay in iyaguna ay saarnaayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo mas'uuliyiin kale oo sugayay hubinta ayaa waxyeelo ka soo gaartay. ilaa inta aan ognahay khasaaraha dhimashada indhaheena aan ku aragnay waxay kor u dhaafayaan 15 ruux. dhaawacuna intaas oo uu ka badan yahay. waxa sidoo kale qaraxa uu saameeyay dad iyagu meesha ku ganacsanayay iyo sidoo kale dad kale oo guryahooda meesha ka agdhawaa oo u badnaa dad barakacyaal ah. sidoo kale dadka dhaawacyada iyo dhimashada soo gaaray waxaa kamid ah dad ku nasanayay geedo har ah oo ku dhex yaala taalada daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho oo iyaduna inta ugu badan ka burburtay qaybta soo xigtay dhanka qaraxa. waxaa sidoo kale inta la og yahay jira burbur kale oo gaadiid meesha ku basbeelay oo qaarkood ay lahaayeen ciidamo goobta marayay. dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray sidoo kale ciidamadii hubinta meesha u joogay ee nabad sugidda Soomaaliya ka tirsana. wixii warar ah ee ku soo kordhay faahfaahinta dhabta ah ee khasaaraha hadii ay ka hadlaan laamaha ammaankana waxaad kala socon kartaan baraha bulshada ee Radio Kulmiye iyo website-kana radiokulmiye.com.